maxkamadda gobolka banaadir ayaa la hor keenay wasiirkii hore ee amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdi Nuur Janan kaas oo dowladda Soomaaliya ay horey u xirtay Cabdirashiid Xasan Cabdi Nuur Janan iyo Buule Aadan Maxamed ayaa la hor keenay maxkamadda gobolka banaadir waxaana loo haystaa eedeymo la xiriira dad rayid ah oo lagu laayay degmada Doolow inkastoo aan warar dheeraad ah laga helin qaabka maxkamadeynta Cabdirashiid Janan ayaa haddana warar hoose waxay sheegayaan in ehelada dad sheegaya dad inuu ka laayay maxkamadda ay ka codsanayaan in xukun dil ah lagu xukumo 1 September ayaa garoonka aadan cadde laga qabtay Cabdirashiid Janan xilli uu ku sii jeeday magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya xukunka wasiirkii hore amniga ayaa horey waxa uga dhashay dibadbaxyo ballaaran oo looga soo horjeedo kuwaasi oo ka dhacay qaybo kamid ah magaalada Kismaayo iyo gobolada Jubbooyinka dowladda Soomaaliya ayaa horey u sheegtay in Cabdirashiid Janan yahay dambiile isla markaana cadaaladda la marsiin doono waxaana lagu haystaa dambiye dhanka xuquuqda aadanaha sidoo kalena hay'adda xuquuqul insaanka ee Amnesty International ayaa xariga Cabdirashiid Janan horey u soo dhaweysay iyadoo sheegtay in dambiyo dhanka bini'aadanimada uu galay waxaa laga dhul sugayaa go'aanada maxkamadda ay ka qaadato iyadoo maxkamadeyntooda marxalado kala duwan la marsiin doono